kulankani toddobaadla ay sida wadajirka u kulmaan maamulka gobolka Togdheer iyo dhammaanba isudawayaasha laamaha dawladda gobolku ayaa ahaa mid ka duwan kulamadii hore waxaana maanta shirkani uu ahaa mid warbixino kala duwan laga dhageysanayay gudida la dagaalanka maandooriyaha gudida hay'adaha iyo waliba in taageero ballaaran la barbar istaago heshiiska dekada magaalada Berbera kulankani uu shir gudoominayo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabiyo Tire ayaa ugu horeynba waxa ka hadlay kulankaasi qaar ka tirsan isudawayaasha laamaha dawladda gobolka Togdheer waxaana si u sheegeen inay taageersan yihiin heshiiskaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan waxaan u taageersanahay tikada weyn ee Berbera laga sameeyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay reer Burco anigoo ah isku duwihii diinta iyo waqaafta gobolka Togdheer ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaan dhammaanba waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa cidii ka soo shaqeysay heshiiskaas مشروع أما مالكشجع لقشري دكتور بربرة وحنو أركع إنه فائدة وياهي ودن كيما. اليوم يبغى بودرنا أون سود ويننا شركة بيبي ولا دولة الإمارات كا هي دولة الصومال لان هشيس كيا ودقلان دبي كوا ودقلان مال صدحات مدحوينها هي وزير دي مسير كمالية دينو صحيحي مدحوينها جمهورية الصومال لان مدن أحمد محمد سيديالا ينوحن كو حنبلييننا go'aan qaadashada adag ee uu qaatay mashruucan Soomaaliland wuxuu taraya oo xagga maalka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga shaqada maalaynaya maanta wixii ka dambeeya in qof oranaya shaqalaan bay haysaa aanay jirin inaga lafteena shaqaynayna aynu halka shaqo u doonanayno marka waxaan leenahay hambaliyo waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin uga soo jeedinayaa heshiiskii ay wada galeen jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda DB World ee Imaaraadka Carabta aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay shacbiga Soomaaliland waxa leenahay dhamaanteen bayna ku faraxsan aan soo dhaweyn dhankiisa gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabiyo Tire ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid taariikhi ah oo u baahnaa guud ahaanba shacbiga reer Soomaaliland inta isugu nimid shirkayagii wiiglaha aan ku soo qaadanay kolley dhowr arrimood baan maanta ku soo qaadanay oo ka mid tahay guddiyaanu leenahay haddaanay isudawayaashu guddidaasi guddidii la dagaalanka maandooriyaha waa warbixintoodii baan dhageysanay guddidii hay-adaha waxaa kaloo idan aan ku soo qaadanay heshiiskan taariikhiga ah oo ah heshiiskii 25 sanadood ee ay dowladda Soomaaliland jirtay waa historical agreement waxa weeyaan waa taariikh runtii kula suntan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siraayo ilaahay raalli ka noqdo waayo qofku waa hadduu madaxii waa inuu go'aan iyo garasho yeesha go'aankana kama soo hadho dowladnimadu iyo xukunku waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland odogeydan intaasoo go'aan uu qaatay ka mid ahayd kii furista asxaabta kii adogeyd darajada waxyaabo fara badan oo adag bayna soo maray uu kaga talaabay go'aan adag iyo garasho dheer iyo waayagnimadiisa waxaan ku hambalyeynaya xukuumaddan hadda jirta waxaan kaloo ku hambalyeynaya tiimkii ka shaqeeyay ee aadka isaga xilka saaray ee ugu horeeyo safiirkeena Imaaraadka Baasha Cawil oo isagu kow ka ahaa waxaan kaloo halkan ka amaanaya runtii oo iyagana leeyahay tacab iyo tamar bay geliyeen wasiirkeena madaxtooyada Maxamed Xaashi wasiirkeena arrimaha dibadda wasiirkeena maaliyadda wasiirkeena qorsheynta maariyaheena dekada tiimkii ka shaqeynayay heshiiskan in uu hirgalo oo tacab fara badan iyo tamar bageliyay waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.